يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni ku baro af soomaali kombyuutarka qeybtiisii saddexaad. waxaynanu bilaabaynaa cashirkii ugu horreeyay ee barnaamijka Microsoft Office PowerPoint. barnaamijkani waxa uu la tacalluqaa qaababka loo diyaariyo presentationska. ugu horreyntii waxaanu soo kicisanaa barnaamijkeena. waxaanu tegaynaa star menuda amba halka searchka magaciisaynu ku qoranaa PowerPoint 2016. marka splashkan oo kale ayuu soo kacaa, qaabkan uu soo kaca isagu, halka weerku ka ahaa mid buluuga. marka qaabkan isagu soo kaca. barnaamijku marka uu soo kaco sidan ayaa u ekaanaya. halkan waxaa ku yaala tiimam fara badan oo kaad u baahantahay aad dooran kartid adigu. ugu horreyntii waxaanu iska isticmaalnaa inagu custom. marka mid qaar aynu soo download gareyn doono hadhow tole way jirtaa oo online aynu kusoo download gareyn doono oo cashirka labaad waynu ku qaadan doonaa kuwa. haddase waxaanu isticmaalnaa kuwan caadiga defaultka inoogu jira. marka ugu horeysa haddii aynu soo qabsano mid ka mid a kuwan aynu isticmaalno midkan aynu isticmaalno. afar nooc buu eegyahay. mid waa qaabkan iyo qaabka. markaa qaabka kaad baantay baad samaysani keliyad baad aad kusoo dhufan doontaa. marka ugu horeysa qaabkan ayaa uu soo eegyahay barnaamijku. marka uu saa usoo kaco halkaa u sareysa waa ribboniski muxuu ahaa tabiskii oo animationka, transitionka iyo start design dhammaan waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa. intaas sare oo dhan tabis baa loo yaqaanaa. waxaa kusii jira dhammaantood ribbonis wax loo yaqaano ama khaanadahan oo shaqooyin fara badan noo qaban doono haddii aan la yiraahdo. intaasaa ugu muhiimsan. halkan iyadaa marka la sameynayo redo ama undo oo kale weeyaan. xagganaad kusoo biirbiirin kartaa sidan weerkaba soo sameyninay oo tusaalahaan new intaan tigta soo saarno oo ay noogu soo biiraysaa meeshu. markaa hadhow markaan waraaqad cusub sameynayno halkaasaynu ku dhufan doonaa haddaynu u baahannahay. marka ugu horeysa halkan waxaa lagu qoraa ciwaanka guud baa lagu qoraa, waana capital weeyaan. xaggan hoose waxaa lagu qoraa iyadana ciwaan hoosaadka kale loogu talagalay in lagu qoro. markaad kasoo baxid qaabka, marka ugu horeysa haddaad doontid farta tagtay ku tahay waad iska bedeli kartaa oo mid kalead ka dhigan kartaa. marka groupkan homeka gaar ahaan tabka homeka gaar ahaan groupkan font ayaad ka bedeli kartaa fartaada. sidoo kale sizeka waad bedeli kartaa, waad sii weyneyn kartaa waanaad yareyn kartaa. midabka fartaad bedeli kartaa, waad nooc kale ka dhigi kartaa. bold baad ka dhigi kartaa, khadkaad ku badin kartaa. italic oo jijiifa, underline oo xariiq hoosta ka maray. ciwaan hoosaadka isagana saas si lamid aad ku samayn kartaa. fartaad waaweyn kartaa. sidoo kale waxaad bedeli kartaa farta nooceedaad bedeli kartaa. midabka fartaad isna bedeli kartaa. italicna waad ka dhigi kartaa waad ka dayin kartaa. gaadoontid baad u samayn kartaa. markaad qaabkaa sameyso slide cusub baad create gareynaysaa. marka laba qaybood baa kala jira.
hadaad Ctrl iyo M taabato tusaale ahaan qaabkan bay kugu soo baxaysaa. Marka taad u baahan tahay waxa weeyaan mid ciwaankii oo kale sida tan oo kale, mise waxaad u baahan tahay mid ciwaankii iyo qoraalkii caadiga aad sameynaysid macala sawiraanta aad soo gelinaysid tu isbarbardhig oo kale tu ciwaan kaliya taa. Marka laba xog oo kale taas weyn tan waa isbarbardhig, tan header ama qoraal sare oo kaliya tan loogu talagalay, tan tumaran. Marka hadba baahidaadu tay ku xidhan tahay. Imikana waxaan u baahannahay midaasaynu u baahannahay inaynu ciwaano samaysano, sawiraan iyo waxaynu soo gelinayo qoraal meeshii. Marka xagga waxaad ku qoraysaa ciwaanka ugu horeeya. Xagga markaad ciwaanka koowaad ku qorto asigana fartiisa hagaajiso, Ctrl E ayaa taabanaysaa iyo centerka dhig oo kala fartaad bedeli kartaa. Halkan ayaa taabanaysaa deetana hadaad doonaysid dhibicda ugu horeysa inaad iska masaxdo, waxaad taabanaysaa double backspace kabacdi qoraalkii baad qoraysaa. Marka qoraalkaas oo kale nimanka tusaale ahaan ku bixinaynaa waynu soo copy garaynay. Midkan ayaynu tusaalaha ku bixinaynaa. Marka qoraalka saasaad u gelinaysaa. Waxay noogu xigaysaa markaan tusaale ahaan soo gelinayno mid sawir ah. Haddii aad u baahan tahay inaad soo geliso slide-kan aad isticmaashay, ha ku dhufan new slide calaamadda ka sareysa kusii dul dhufo si iyadoo kale kugu soo gasho. Haddii kalena waxaad tagtaa new slide kabacdi mid sawir oo kaliya aad uga baahan tahay iska dooro. Marka imika isla iyadii baynu isticmaalinaa inagu iyadana doorana ciwaankaas sare continue baad sii leedahay way sii socotaa. Centerkana iska dhigo. Marka waxaad tegeysaa halkaasaad tegeysaa sawirka oo kale meelahan baad aad mid kamid ah dooranaysaa. Marka imika xaggaas waa table, chart, qaybahan oo dhan markay ay ku diyaarsan yihiin baad isticmaalaysaa. Sidoo kale haddii aanay ku diyaarsanayn imika haddaynu xagga ku dhufano iconkaasi wuxuu na geynayaa halkii sawiraanteena iyo waxaas inoo yaaleen. Sidoo kale haddii ay halkan aanay ku oolin waxaad tegi kartaa halkan loo yaqaano insert kabacdi waxaad ka dooranaysaa pictures. Marka pictures halkaas ay ku imanayaan waad ka soo dooranaysaa haddii la yiraahdo sawir alaala sawirkaad u baahan tahay. Kaasoo kale haddaad u baahan tahay waad weyneyn doontaa haddii la yiraahdo. Marka sidoo kale waxaad u baahan kartaa haddii aad sawir soo gelisay inaad maxaan ku rahdaa aad geliso video. Isna waxaad taabanaysaa halkaasaad taabanaysaa insert video. Marka wuxuu moodaya inaad ku shaqeynaysid mid online inaad baahan tahay. Haddaanad online u baahnayn work offline baad leedahay. Marka mid offline oo kala soo qaadan doontaa halkaasaad click siini insert deetana. Marka video macala control-kiisa wata aynu soo gelinay say inoo muuqata halkaasaan dhiganaa aynu ku weyneyno shaashadeena. duni iilatiyo waqti duuban oo tabinada iblays laga daahayba dadku taagay. Haddaynu qaybta koobaad ee default-ka ah aynu ku daynay intaa. Markaad doonaysid inaad soo weynaysiisid waxaad taaban doontaa keyboard-kaaga F5 halkay ku qoran tahay. Marka saasay kugu soo weynaysimaysaa. Haddii aad rabtid inaad taabato ama aad samaysid inaad ka noqotidna halkay ku qoran tahay escape ee keyboard-ka taabanaysaa markaas saasaad uga baxaysaa. ESC ayaa ku qoran marka calaamadda sad kaga baxaysaa. Marka imika cashirkeenan haddii aynu waraaqaheenan aynu sameynay oo kale aynu transitions gelino halkan slides aynu sameynay oo dhan bay noo soo gelaya.
waxaynu gelin karnaa markaa dhaqdhaqaaq waraaqada. Iminka tusaalaantaas hadaynu taa lafteeda gelinaba qaabkaasoo kale hadhow soo furmaysaa, ama sidaasoo kale haddaad tiraa kaad u baahan tahay. Waxaanu dhammaan hadday ku qanci waayaan halkan imo kabacdi ninkaa doonaysid ka dooro. Haddii iyaga laftooda kusii qanci waayaan waad raadin kartaa oo waxaad ka raadinaysaa halkan. Iminka tusaalahaan taa shoocaasoo kale, amaba taa intaad dooratid baad cod dul saari kartaa. Codka kuwanaad mid dooranaysaa. Hadhow tole preview baad leedahay, saasay noqonaysaa. Haddii aad F5 taabatid saasay noqonaysaa, deetana negas baad leedahay. Waayahay negas markaa arrow-yadaad ka bedelaysaa oo aad ka geynaysaa. Waraaqada ku xigtay isla iyada dooro, kabacdina waxaad taabataa isha soo furo kaad u baahan tahay ka dhigo markaa flashkaas oo kaleba, ama midda isla ta ku xigta dooro, deetana kaad u baahan tahay dhigo, deetana midda kusii xigta haddana waxaad doorataa waraaqada kale. Markaa saasay noogu dhan tahay. Waxaanu imanaa haddaba iminka qoraaladaynu imanaynaa. Animation badi ay ku samayn kartaa. Markaa waxaad tegeysaa animation group tabka animation, markaa waxaad soo furanaysaa isha ama groupka animationka ishiisa soo furanaysaa, kaad u baahantid markaa ku samaynaysaa. Haddana qoraalka kala dooro, isha soo furo, midkaad u baahan tahay ku samee. Haddii haddana qoraalada kale u kaalay, haddana kala dooro qoraalka kale isna dooro. Markaa dhammaantood intii box ku wada jirta markii la wada samayn kartaa. Iminka kaasoo kale u ka dhig. Sawirkan oo imo waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan kana waxaad ka dhigtaa sawirka laftiisa ayada animation u samaynaysaa. Waxaad ka dhigtaa ama leedahay kaaba ka dhig. Videoga aad imanaysaa, isagood videoga dooro haddaad u baahan tahay, waxaad taabataa kaad u baahan tahay. Qoraalkan sarena haddaad doonto waad ka bedeli kartaa. Qoraalkan sare deetana delete un taabo si uu kaaga baxo qoraalkaas. Videogaad meesha ku weyneyn kartaa markaa. Markaa iminka haddaynu F5 taabano, halkii ugu horreysay uu nooga soo bilaabaya. Haddaynu arrowga negas arrowga aynu taabano, ka ku xigana geynaya. Haddaynu ku sii xiga taabano, ka ku sii xigana geynaya. Ka ku sii xiga haddaynu taabano arrowga, haddana taabanaysaa, haddana arrowga taabanaysaa, haddana arrowga marka la taabo, haddana arrowga taabo, haddana arrowga taabo, haddana markaa saasay ku dhantay. Waxay noogu xigaysaa intan mid ka mid ah haddii aad u baahantay inaad tusaale ahaan aad qarisid oo kale hide aad saartid ama aad iska qarisid. Taad u baahan tahay baad dooranaysaa, kabacdi waxaad tegeysaa halkaa loo yaqaano slideshow. Groupkan setup-ka waxaad ka helaysaa halkaa hide slide baad ka helaysaa. Markaa lambarkaas oo kale number 2 waxaad saaran calaamad baa dul saaran inaan hadhow tole ku jiraynin markaad soo furatid waraaqaaga. Marka hadda iminka F5 taabano waa inaga boodsiin doonaa midda. Waraaqadii saddexaad baynu ku boodnay. Markaasaad aragtaan
waraaqadan waa laga boodaya iyada. Haddii aad ka qaadaysidna iyadun baad kaga qaadaysaa oo mid kalan saarayba iyadoo dooro deetana iyadii halkii un ku dhufo markaa saasaad uga qaadaysaa. Tusaale haddaad doonaysid inaad mid delete garaysid iyada dooro deetana keyboardkaaga waxay ku qoran tahay delete taabo ama control z baad ku soo celin kartaa, right click ku dul dhufo kabacdi waxaad ka doorataa halka ay ku qoran tahay delete slide markaa saasay kaaga baxaysaa. Markaa tusaale ahaan haddii ay isweydaartaan imikoo kale waraaqahaagani ay isweydaarto slideskaaga waad isweydaarin kartaa markaa taasaad soo saraysiin kartaa tanaad saraysiin kartaa saasaad isku weydaarin kartaa hadii la yiraahdo. Waxaynu ku joojin doonaa halkaa waynu save garan doonaa oo keliya markaa casharkan inoogu xig waxaynu isticmaali doonaa haddii la yiraahdo mid online ah oo aynu soo download garayno markaanu save garaysano folderkaasoo kale aynu tusaale ku ridaynaa magacaaga ku daabo haddaad doontid okay baad save baad leedahay. Haddaad doontid password baad kusii xiri kartaa inta toolskan soo furto general options kaalay kabacdi passwordka geli 123 waan gelinay tusaale ahaan okay dhe dadna waxaad tirahdaa 123 mar labaad ku celi okay markaa password baa ku xiran imika saasaynu ku save garaysanay. Haddaynu xidhno oo imika tusaale ahaan dib u soo kicino marka waraaqadaynu slideskaynu save garanay kuwaas taas ay ahayd. Haddaynu imika ku dhufano password baan weydiin doonaa 123 geli markaa saas ayay noogu shaqeynaysaa hadii la yiraahdo. Xaggaas ayaynu maanta ku joojin doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.